xildhibaano tiradoodu gaadhayso 21 xubnood oo ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliya uuna horkacayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qayb galay seminar lagu baranayo hab maamulka guddi xeer hoosaadka baarlamaanka sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Jaylani Nuur Ikar wafdi ka socda baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guddigiisa xeer hoosaadka ayaa maanta workshop ugu bilowday magaalada Kampala dalka Uganda workshop ku saabsan arrimo ku saabsan xeer hoosaadka oo isla garteen guddigaas in mutaqaana lagu falanqeeyo oo wixii ka dhiman iyo wixii wax laga bedelay ee mutaqaana ay halkan workshopkan ugu qayb galaan ayagoo la kaashanayo experts ka socdo aweba oo noo fidisay mutaqaana noo fududeysay in hal workshopkan halkan ka dhaco iyo NDI taasoo ah mahadweyn aan kaga celinayno labadaas hay'adood oo noo fududeysay workshopkan oo halkan Kampala ka dhaco guddiga xeer hoosaadka waa u dhan yihiin waxa meesha socda gudoomiye ku-xigeenkooda xogeeyada iyo inta badan oo guddigaas ka mid ah workshopkan wuxuu socon doonaa ilaa 7 maalmood ayadoo lagu falanqeyn doono maxaa la yiraahdaa arrimo yar oo mutaqaana soo ifbaxay oo loo arkay in ay ka maqan yihiin mutaqaana xeer hoosaadkan ku dhaqan la soo falanqeeyo ayagoo la kaashanayo experts caalami ah si aan u gaarsiino xeer hoosaad international level ah oo ay ku dhaqmaan adduunyada kale ama baarlamaanada kale intaas ayuu ku saabsan workshopkaas wuxuu socon doonaa 7 maalmood seminaarkan oo socon doona muddo hal toddobaad ayaa xildhibaanada ka qayb galay waxay u arkaan inuu muhiim u yahay hanaanka xeer hoosaadka anshaxa daryeelka iyo xasaanada uu u leeyahay mudanaha ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya sida uu sheegay gudoomiyaha guddi xeer hoosaadka baarlamaanka Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cali Ibrahim Baghdad guddigu fursad inuu isku helo oo uu diyaariyo xeerka xasaanada oo horeyba meel dhex u marayay inuu dhameystiro si sessionku kala fadhigo markuu furmaabo uu horgeeyo baarlamaanka iyo xeerka anshaxa xeer la yiraahdo lifaaq ku ah maxaan ku raad xeer hoosaadka ku ah sidoo kale wuxuu si bilaabayaa xeerka xuquuqda min madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo dhammaan marka intay xilka hayaan iyo markii xilka ay ka degaanba xeerkaas isaga marka initiative-ka iyo mubaadarada bay baarlamaanku sameynayaan waxay isla sheer gareynayaan maadaama ay saameyn ku leedahay miisaaniyadda xukuumadda ay la sheer gareynayaan marka maadaama baarlamaanku ay xuquuqdiisa iyo ay saameyn ku yeelanayso waxay xaq u leeyihiin inay xeerkaas curiyaan xeerkaas isagaana waxaa amraya dastuurka wuxuu leeyahay wixii xuquuqda xildhibaanada waxay ku soo baxayaan xeer gaara maadaama mustaqbalku madaxweynuhu markii xilku dhamaado oo xildhibaan noqonayo iyo xildhibaanada baa waxa la yiri hadda iyo markii ay xilka ka tagaan maxaa ku haraya oo xuquuqa maxay hadda leeyihiin xeer gaar in laga soo saaro dastuurku u farayo marka xeerkaasna inaan horudhac si sameeyno draftigiisa si aan ula sheer gareyno seminaarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay xiriir iskaashi kala saxeexdeen inuu dhex maro hoggaanka baarlamaanka Soomaaliya iyo Uganda bartamihii sanadii aynu ka soo gudubnay ee 2013 Igla Saalax Ali